Soomaaliya waxay maraysaa marxalad kala guura oo runtii loo baahan yahay aad in looga taxadaro sida meesha lagu guurayo iyo meesha aan joogno iyo waxa loo baahan yahay in nidaam dawli ah oo wanaagsan oo Soomaaliya maanta kan ka jira ka wanaagsan aan u dooran lahayn waxaan rabnaa go'aanka idinka iska leh anagu ma leeyahin ina tilmaamayno masiirkiina weeye masiirka caruurtiina weeye waxa idinku aad maanta go'aansateen ayaan Soomaali u geenaynaa taas aanu ka gadaynaa taas ayaanu anagu go'aan qaadanaynaa idinka go'aanka qaadataan baan dawladda iyo madaxweynaheedu idin la qaadanaya We do thank the government of Puntland who has been at the forefront of this process. All support we have been given by the international community as well. We do appreciate, and we do hope that this is the beginning of a new horizon for the future of Somalia. Thank you very much. maanta waxaan ka qayb galnay 16 November geedi socodkii doorashooyinka 2016 ayaan ka qayb galnay iyadoo halkaas qodob badan la soo dhigay oo laga hadlay oo laga dooday waxay ila tahay qof walba wuxuu ka doodaya wixii maaragtay jira iyo wixii Soomaaliya ku horumari lahayd iyo wixii wanaagsan iyadoo dhinac walba laga fiirinayo dhanka wanaagsan laga fiirinayo marka aad iyo aad baa loo qaadaa dhigay waxaan filayaa insha Allah wax wanaagsan oo dalka iyo dadka Soomaaliya dan u ah inay ka soo baxaan waxaan u arkaa in lagu gaari karo doorasho ka duwan tii 2012 ahaa 4.5 hab qabiili ahaa oo lagu gaari karo doorasho more democratic ama inclusivity ama dhammaan shacbiga ama bulshada Soomaaliyeed ay ka qayb qaadan karto mar walba aan isweydiiyo waxa ka mid ah wadanka yani markii loo eego sida ahaan jirnay